بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا إستر channel ku xidhan rag iyo dumarba waan idin wada salaameynaa soo dhawaada ayaan idin leenahay Istr channel ku soo dhawaada haddaad nagu cusub tahay asxaabay subscribe haddaad nala sii joogtay like iyo share-ka noogu dadaal waa free like iyo share-ka iyo subscribe-ka iyo kulli waxaas dhan waa free ya lacag idinkuma socoto noogu dadaala markaa soo dhawaada asxaabey adduun weynaha meel kastood naga daawanaysaan waan idin wada salaameynaa soo dhawaada ayaan idin leenahay kuraas soo qaata soo fadhiista shaaxa iyo wax walba soo qaata soo dhawaada maasha allah asxaabey saan horeyba idinku soo gudbin jirnay caawa qiso ayaan idin wadnaa qisadani waxay ka dhacday wadanka Mareykanka magaalo kamid ah oo la yiraahdo Illinois tuulo yar oo kamid ah ayay ka dhacday qisadani waxay dhacday bishii 6deedii 2004 ayay dhacday qisadani waxay ku dhacday qoys yar oo ka koobnaa 4 qof hooyo iyo aabe iyo wiil iyo gabadh yar oo yar oo caruur bay ahayn kuwaasi marka waxaa dhacday asxaabey maalin weekend ah ayaa waxaa qoyskan ku dhacay oo la soo kulmay maaragtay dhibaato ayaa la soo diristay qoyskan waxay ahayd maalin sabti ah oo weekend ah oo ay dadku fasax yihiin marka waxaa dhacday hooyadii caruurta dhashay ayaa hooyada caruurta dhashay magaceeda Melissa la yiraahdaa marka Melissa ayaa waxay sameysay way baxday waxay tagtay meel ka baxsan magaaladay joogtay magaalo aan ahayn bay tagtay oo loogu sameynayay xaflad dadka kansarka qaba lagu caawinayay ayay aaday marka way ka tagtay caruurtii iyo aabahood bay guriga kaga tagtay way maqneyd markay dhacaysay qisadu iyadu way ka maqneyd hooyadu guriga aabihii iyo 2 caruura joogtay marka aabihii markii caruurtii lagaga tagay aabihii iyo wiil seedigii ahaa ayaa waxay ku aansadeen inaysan guriga joogin inay intay baxaan ay aadaan meel baar ah marka caruurtii wiilkii iyo gabadhii way qaadeen waxay u geeyeen ayeydood hooyadood dhashay baa magaalada la deganayd ayeydood bay u geeyeen marka ayeydood markay u geeyeen ayaa waxaa dhacday way baxeen meeshii baarka ahayd bay iska aadeen wiilkii iyo seedigii habeenkii waxay ka imaadeen markay ahayd 1 o'clock oo habeenimo marka 1 habeenimo marka wuxuu sameeyay aabihii labadiisii caruur ahaa buu ka soo maray gurigii sodohdii uu soo qaaday gurigiisii buu yimid gurigii markuu yimid caruurtii maaragtay 1 o'clock habeenimo way hurdaan waa caruur yar yar oo midna 3 sano jiro midna 5 sano meelahaas uu jiro marka gabadha yar 3 sano jirtay Raali baana la dhahaa magaceeda waa gabadha yar ee qisadu ku dhacday waa Raali marka waxaa dhacday muuna caruurtii way hurdeen uu soo bixiyay gaarigii ka soo bixiyay wuxuu sameeyay marka fadhiga ayuu seexiyay caruurtii waa nin isaga dhanba uu cabsanaayo baar ka imaaday caruurtii buu fadhiga seexiyay kor buu iska koray isaguna guriga qaybta kor iyo hoos buu gurigu ahaa qaybtii koruu koray qolkiisuu tagay uu iska seexday caruurtiina fadhigu kaga tagay bal fiiri meeshaas hooyo talo saamay sameyn lahayd waraa ragoo caruurta marka la kaga tagayaa si fiican u dayactira maaragtay fadhiga in la seexiyo iyo waxaas waa maaragtay oo bal fiiri wallahi hooyo kama suurta gasho intay caruurteeda fadhiga seexiso inay kor tagto iska seexato yaa wiilasha waxa waa in la karbaasho weeyaan ayaka marka wuu baxay kor buu iska tagay wuu iska seexday ilaa subaxii 8 subaxnimo ayuu hurday marka gabadhii wiilkii yara hoos buu seexiyay wiilka maaragtay 6 sano meelahaas uu jiray gabadha yarina 3 sano jirtay wiilkii yaraaba kor tagay uu soo kiciyay aabihii wuxuu ku yiri aabo Raali ma joogto waa gabadhii yareed Raali aabihii wuu soo naxay wuu soo sasay maaragtay dee wuu hurday ma ogtahay wuu soo sasay wuxuu sameeyay marka gurigii hoos buu yimid fadhigii buu yimid gabadhii yareed buu meel walba ka raadiyay xagga tag jikada ka fiiri basementiga ka fiiri qolalka dhan ka fiiri gabadha yarna way ciyaar badnayd
ilmo yaroo 3 sano jira waa iska garan kartiin maaragtay wuxuu iska jecel yahay meelaha inuu iska galgalo oo tanina wayba ciyaar badnaydba marka wuxuu ka fiiriyey backyardkii gurigii qaybtii dambe maaragtay barxaddii dambe guriga barxaddii hore meel walbuu ka fiiriyey muddo 45 daqiiqo ayuu keligii baadhayay gabadhii inuu maaragtay bal uun meel uun uu ka helo marka waxaa dhacday wuu waayay gabadhii yarayd meel walba guriga uu ka fiiriyey uu ka waayay wuxuu wacay 911 buu wacay waa hay-adaha amniga ayuu wacay ee la wacdo marka wuxuu u sheegay gabadhii yarayd inay maqan tahay oo muddo intaas la egna uu raadinayay uu guriga dhan ka waayay marka booliiskii baa u yimid iyo kuwii investigationka gurigii oo dhan baa la baadhay meel walbaa la baadhay waxaa la arkay gurigii backyardka albaab dambuu lahaa gurigu albaabkii dambe oo shabagii ka fiiqan yahay oo shabagii ka jaban yahay oo albaabkiina ma aragtay uu jaban yahay oo albaab xoog lagu soo furay camal uu yahay marka gabadhii waa la baxay magaalada tuulo yar bay ahayd tuuladu markaa oo Illinois ka tirsan marka waxaa dhacday qof walba qofka kale uu yaqaanay magaaladii dhannayd baa isku soo baxday weekend bayna ahayd oo dadka dhan off ay iska ahaayeen marka kii ay lahaa kii faras lahaa kii gaari lahaa dadkii dhana isku soo baxay oo gabadhii in la search gareeyaa la bilaabay oo la raadiyay gabadhii yarayd marka waxaa dhacday gabadhii yarayd sidii loo raadinayay hooyadeed baa soo wactantay aabihii fiiri ilaa iyo hadda hooyadii muuna wicino muuna u sheegin inay gabadhii maqan tahay wallaahi bilaahi nimankaana marka laga yaabo inuu islahaa ha ka naxininayaa qaybta naxariista marmar ha loo baaro marka waxaa dhacday ii sheeg hooyadii baa soo wactantay si ay u ogaato xaaladda reerkeeda aabihii marka codkiisii de waa aabo ilmo ka dhumayo laa ilaaha illa allah waa garan kartiin isagoo sasanay soo wactantay wuu u sheegay wuxuu ku yidhi gabadhii yarayd waa dhuntay waa lala'ya hooyadii dee wadnaha go-ay laa ilaaha illa allah hooyo ilmaheedii yaraa ka tagtay oo aaday xaflad ay dad kusoo caawinaysay maxay ahayd ilmahaagiina wuu dhumay la dhahay wadnihiibaa go-ay way soo carartay adigu dadkii way timid dadkii wax raadinayay ka qayb gashay calaa kulli xaal gabadhii yarayd sidii loo raadinayay waxaa dhacday meel maaragtay park ah oo meelaha la farfadhiistay ee dadku isugu yimaadaan ee dadku farfadhiistaan ah baa maaragtay ayeydeedii habeen hore xalay laga soo qaaday 1 o'clock waxay ku jirtay dadkan wax ka raadinaya ayeydeed baa waxay aragtay wax meel ku gambisan oo saa u gambisan marka waxay tiri waan u soo dhawaaday markaan arkay dhahday waan u soo dhawaaday waxaan arkay tiri inuu waxan yahay qof waan aad baan ugu soo dhawaaday waan arkay gabadhii yarayd inay taan arkay oo dhagax ku gambisan saa ugu gambisan meel dhagax ah marka gabadhii yarayd waa la helay iyadoo dhimatay baa la helay maaragtay wallaahi very sad bay ahayd gabadhii yarayd iyadoo dhimatay baa la helay oo meeshaas parka laga helay bal ma aragtay qaybta labaad ee stoorigan ayaan waxaan ku soo eegi doonaa gabadh ayaa dilay ma aabaheed baa dilay oo meesha kusoo tuuray ma abtigeedii ay aabaheed israacayeen baa dilay ma qof baa albaabka soo jabiyey bal la soco qaybta labaad ayaan kaga sheekayn doonaa insha allah la socod wanaagsan halkaasaan kusoo koobaynaa videogan maanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu